miyaad maqashay wixii ay sameeyeen cayaartooga muslimiinta ee Tunisia si ay u furaan kulamadii ay la ciyaarayeen wadamada Portugal iyo Turkiga waxay sameeyeen arrin la yaab leh iyagoo aan soonkooda furin ay haddana si qiyaano ku jirto garsoorka u qiyaanayeen xilliga afurka la gaaro oo ay afurkooda garoonka dhexdiisa ugu isticmaalayeen ama ay ugu cunayeen soonkooda ma ayn furin haddana maqaarkoodina waa garaacayeen waajibkoodina waa gudnayeen tan iyo sidii ay u curatay bisha barakaysan ee Ramadaan 17kii bishii May xulka muslimiinta ee Tunisia ayaa ciyaaray laba ciyaarood oo saaxiibtinimo ah oo ay la yeesheen wadamada Portugal iyo Turkiga waxaase yaab lahayd qorshihii ay isticmaaleen si ay u afuraan maadaama ay Soomaaliyeed markasta oo la gaaro waqtiga afurka goolhayaha xulka Tunisia ayaa dhulka isu tuura isagoo sheeganaya dhaawac been ah si loogu joojiyo ciyaarta isla markaana ay u helaan waqti ay wax cunaan waxay ku cabaan mar walba oo afurkii waqtigiisa la gaaro goolhayu waa istuura si uu macnaha u muujiyo garsoorku loo qiyaanayo ninka xoogaa yar marka la istaagana timirtoodii waxoodii meesha ku cunaan bariyo ciyaareed oo ay Tunisia ciyaarayeen ciyaari ugu dambeeyay ciyaareen ninka kanu sida ayuu sameynayay kuwa kalena anfurka bay sameyn cunayeen waxay lahaayeen walaal istuur xilligii waa la gaaray afurka markaas istuuraya goolhayu sawiradu la helay ayaa muujinaya ciyaartooyda muslimiinta ah oo biyo cabaya timirna cunaya isla markaana qaadanaya waxyaabo kale oo tamar gelinaya si kulankooda u sii wataan labada kulan ee saaxiibtinimo oo uu ciyaaray wadanka Tunisia iyagoo sooman waxay ku wada dhamaadeen barbaro 2 gool iyo 2 gool ah kulankii Portugal waxa labada gool u siixay ciyaartooyga Anis Badri iyo Fakhreddin Ben Yusuf halka kulankii Turkiga ay labada gool ka heleen Badri iyo Fajani Sassi marka labadii ciyaaroodba iyagoo soomanay ciyaarin ciyaartooyga Tunisia labada kulanba waa ay soonaayeen laakiin qaab qorshe fiican ay la yimaadeen mar walba ciyaartu ay ku aad xilli aan soonkii la furi karin ciyaarta gudaheediina xilli marka soonka la furayo la gaaro hadda lagama yeelayo inay yiraahdaan war ciyaarta naga jooji waa soo afureen lagama yeelayo laakiin qorshe kale ay keesteeno goolhayuuba mar walba istuura marka afurku la gaaro ciyaartii Portugal waxa la arkay xilligii afurku markii ku beegneed malaha kuwii ciyaartooy kale ku yiri war istuur xilligii waa la taagan yahay afurkii weeyaan markaasuu goolhaya istuuraya kadibna garsoor wuxuu leeyahay war goolhayuuba biyo wixii la keenay meesha timirtii lagu cunaya marka labadii ciyaarood tii Portugal iyo waliba tii Turkiga ciyaartooyga Tunisia aan yaab lay sameynayeen waa kaayo anfurkoodina garoonka dhexdiisa ku cunayeen waajibkoodii soonkana gudanayeen ciyaartu waxay ciyaarayeen dabcan iyagoo aan soonka la furi karin marka soonku uu furmayna waa ciyaarta gudaheeda iyadoo socoto kadib goolhayuuba istuuraya kadibna cabitaan iyo timirta meesha ku kala cunayaano waa yaabay garsoor wuxuu yiri wariya xilliga maxay yihiin kuwa kan garoonka timirta iyo waxooda la imaanay arin fiican bay sameeyeen oo ku dayasho mudan oo cimaamadan wana arin ay ku dayan karaan ciyaartooyda kale ee muslimiinta kubadda cagta ciyaara haday ahaan lahayn kuwa qaaradda Yurub haddana way tahay in ciyaartooyda muslimiinta ay ku daydaan ragga Tunisia iyagoo waajibkoodii gudanaya ayna maqaarkoodii ciyaareen walibana soonkoodina furanayeen markii la gaaro waqtigii afurka marka waxay ahayd qorshe cajiib ah oo lala yaabay oo isbuucan ay sameeyeen ciyaartooyga Tunisia oo afurkii garoonka ku dhex sameeysanayay markii Portugal iyo Turkiga la ciyaarayeen dunida muslimka ayaan aad u amaantay ciyaartooyga Tunisia haddaba waxa jiri doona dhowr wadan oo muslimiin oo ka qayb gali doona ciyaaraha koobka adduunka oo hadii ay dhacdo laaziman in waqtiga ciyaartu ay ku beeganto xilli la sooman yahay inaanu soonkooda furino يعني sida kuwa kan oo kala isturturaan kadibna anfurkoodii meesha ku helaan marka la gaaro xilliga afurka waxana wadamada ka qayb gali doona muslimiinta loo arka kamid ah Masar oo Maxamed Saalax uu qayb ka yahay Saudi Arabia oo wadan muslimiin oo weyna waxa ku jiri kara Morocco waxa ku jira maxaa la yiraahdaa Iran waxa ku jira iyo dhowr kale oo ciyaartoy oo Faransiiska iyo kuwa kale oo kala ciyaari doona waxa jira iyana muslimiin iyo Jarmalka ku hor jira kulay Tunisia ciyaartooydu qaab ku dayasho mudan oo lagu dayda ay u sameeyeen ciyaartooyga mondial ka qayb gali doona koobka adduunka ayana hadda waxa maanta ka harsan kaliya 10 maalmood kadibna maqaarku ayaa la baasi doonaayo ruushka ka dhici doona